لكن أول كيليزو إلى ما سويت أول وجمهد جامرتي إذا ما بدن بيلا نجال مر له يهوجانوا يهرجوا وأنا مجل عدك أنت بدن حرير اللي هي تلك الرجال بيتك ورباهم بزوج اللي ودنك وحكت دولتا تلك يوحكت على قبل كاسون كدبية مركا شمس أديس أنا أصيغ أول فود البدن ورتا أول سيلو دكتور أبي أحمد وكيل وان شيء أول فينا نحن جمهد نوع أورسن سيستم دول النمو هو هذا اللي يجي كره تاس أيوة أدو وحنا قان أدبنا وحنا لكن هذا الكأدس وحود دوينية هذا الكأبي كسوير يعني لو كلا فوقين وشمس هقول كلاوت عدنسة مركب ماشي كبير جو تمارك إن أورمي الدجال أورس بكسر مال كده من الدجال نهر ركوسي فيلا قبل لو وين الجواد عندك ورقت وضبحت سنتها دكتور شلو وحكى جرى مقالة جوجا وحكى قبصو ما يشير لسويه ري دمان با معمولة gobolada iyo degmooyinka kaasi oo looga hadlayay maamul wanaag iyo arrimahaasi shirka Jigjiga ka qabsoomay iyo durbaantumka amxaarada ay maalintii labaad ay ka wado magaalada Jigjiga maxay kula muuqataa neew madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dhawaan waxa soo gaadhay fariin culus oo ka timid federaalka waxa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxa loo soo jeediyay inuu isla xisaabtan ballaaran deegaanka Soomaalida laga sameeyo oo si weyn guddiga la dagaalanka musuqa ay dhawaan mar kale ay ka fulin doonaan hawlgalla aad u badan oo ilaa heer gobol ilaa heer deegaan gudaha ilaa heer qabala ay baaritaan ka sameyn doonaan marka wax isku ogaansho waxa la jira madaxweynuhu wuxuu sameeyaa inuu gudoomiyaasha iyo ilaa kuwa qabalayaasha tuulooyinka meel kasta inuu isku yeeray wala abreedgaranaya in wax lagu shubaal rabaa inay wax meel ku total gareeyaan oo wax la weydiiyo waxooda u diyaarsan isku soo uga jawaabaan bal rabaa marka waa difaac Mustafa Maxamed Umar ku jiro hawshaasina way socotaa Jigjiga way la circiraysaa kulamadaas aad bayna deegaanka Soomaalida ay dadaal badan oo muujinay halkaas amxaaradu maalintii labaad waxay ka wadaa wax la yiraahdo isu soo bax diimeed oo magaalada Jigjiga ka jira dadkii ganacsigii iyo isu socodkii magaalada waa uu joogsaday ilaa iyo muddo 2 maalmood arintaas soo kamana jirto hada ugu kama jirto deegaanada kale ee Itoobiya kama jirtay sanad walba meesha laga dhiga loo xiro moodaysa inay Gondar iyo Baxardaar joogaan waa magaalada Jigjiga arintaas kula muuqata arintaas waa nasiib darro waa musiibo ku habsatay bulshada deegaanka Soomaalida musiibada ku habsatay waxa waay in ay qoomiyada axmaaradu noqotay hantiilihii deegaanka in qoomiyada axmaaradu noqotay mulkiilihii magaalada Jigjiga in qoomiyada axmaaradu noqotay mid aan laga daba hadli karin in qoomiyada axmaaradu noqotay mid ay Jigjiga intay doonto u xirnaasan intay maalin doonto ay u xirnaanayso oo ninka axmaarka markuu wadada isgoglo aan laga qaadan ilaa uu asoo cajis baxo xaalad Jigjiga halkaas galaysa Jigjiga waxay galaysaa inuu isbaaran axmaar u seexdo halkaas gaariyaha dhan leen begelayaan dadka dhanka laga ma qaadi karo ilaa wax axmaarkaas intuu cajis baxo uu gabiyaam wadadaas ka kaco waxaa jira دكتور شيدو amxaaradaasi ilaa 2 maalmood bay ku dabaaldegayaan laakiin dadku waxay roo fahmayaan niman mucaarad oo aad u fog bay noo faayay inta badan dadku ma moodayaan laakiin mucaarad ma nihiin inta badan xaqiiqada un baan ka hadlaynaa waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo xagga sicir bararkii bariyan waxa ugu dambeeyay in kastoo la sheegayo inuu dollarkii maxaan ku dhahay lacagtii birta ay magarata hadda hoos u dhacday oo magaranaysa ay sidii hore ayna ahayn deegaanka Soomaalida ilaa waqtiga isbedel ku dhacay wax kor u socon wax hoos socon male maalin lagu kasdaraya arintaas waxay keenaysaa nimankan ganacsiga deegaanka qabsaday nimanka ganacsiga deegaanka waa qurba joog dhamaantood diblomaasiyiin waxay yaqaanaan qurbaha cilada uu leeyahay qurbaha dhibka yaal leeyihiin marka dhamaantood waxay ka gaashaamanayaan hadii lacalaba kursigan aad ka tagto dhawaan waxaad ku noolaan lahayd maadaama siyaasi noqotay oo deegaanka aad xilal soo qabatay dad aad soo dulmisay hantidooda aad soo dhacday dhawaan sidii shacabka u shaqaysanaysa bulshada dhex socotay kuma suurtagelayso marka nin walba wuxuu xisaabinayaa cimrigiisa inta ka dhiman wuxuu cuni lahaa akoonadood wali ma baaxuusamin cilada koobaad waa meeshaas waxaa jira nin kamida qurba joogta wasiirada laga dhigay wuxuu sheegay waa leeyay inta noloshiisa ka dhiman wuxuu cuni lahaa inuu kaysabay arintaas maxaad ku fasiri lahayd arintaas waa nasiib darro iyo isla xisaabtan la'aan iyo dawlad la'aan waa arintaas dawladda waxa loo xoolo shacab u qaatay arintaasina meel lama gaarsiin doonto laakiin waxa loo baahan yahay dawladda deegaanku in uu madaxweynuhu asaga dadka ugu sareeyo asaga mas'uuliyaddan qaaday asaga maalinta qiyaam laga xisaabtamaya
إن الشخصيات كان وحال الله إجمد إن يدك وأذيجان لو ما كان إنه ورصدان تدي ديانك مدحونه إنه لا حساب تما أنت أسوأ أنت كلا لو عليه يريد فضلك وحنا وباقينا إن الديانك سومالي تلعبك قاده مدحونه إلا كدومية قبله هاي لو السيستم سكحرا أو رعى يبابي أنت الديانك كوزو دولة أرنتها سبحان باين بدبالة قرن إن حزب الأول واقع ودمان بالشدة لكعيه ما كي سومالي حقه سوورتشنا ما الديان كسومالي لو بار ما أنت بدبالة قرن ديان كسومالي بدبالة قرن مو باين وضعتها واحد كان عايمش تدك جاجة علينا معلول بلدك تج أبارة يا جاجة دبا لسكجري واحد كدن قرن يعني ماله رجل أكونود بحسب لي وبهاش وضانهم مرجع أرنتها ستلعب وبعنتها شدو دكتور شدو أنت بدن ملاحظة دولو ديجان كبرتن وينقدر جيسان وأنت بدن والله صحنا هنا هلك نقدر جيسان ما عاد فرين وضوفر له وحنفر له ملاحظة ديجان كسومالي إن مسؤولية دقاتان إن موادين موجيان إن ودينين موجيان إن مثلات موجيان إن أي وح أي مسؤول كيهين أما وح أي كتير يا وح أي سميان به إنه يا وح أي خصوصا لا من دون waxa ay halayeen dhawaan wuxuu uqobo ku noqon doona ama cilad ku noqon doona ubadka ay dhalaan haday wax hadda wanaajiyaan ubadkooda ya ku naalon doona ayaguna duciye wanaag ba ka soo gaari doona laakiin haday sida hadda anaga noo muuqdo daahirka haday ku hayaan waa taan waliid ka harin awlaadooda umayna ka jaranta waxaas waa ficilka ay sameeyaan dhawaan waa jiilka ka dambeeya umba ku soo laabanaysa arintaasi waa hadda loo baahan laga digtoonaado madaxweynaha deegaanka mas'uuliyad iskale wax walba say dhabar ku saaranta la xisaabtana saga sameyn kara aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctor Shida daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada caawa inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamidana waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo